شاء الله نياري أنا طلعوا بعضني روبك معلينيسا يا ما شاء الله تبارك الله ساكت شو يقول روبي ملاها هو سودي إبا مرينا هرابتي شاكل شريرة ومسويكي للروغة أدي قبعا كل أحد لي وحن كيف كريي إلو روب سودي الدونا ينكله هرابتي إرك روبي السنة إريه تمجرته ها وان نمعو إلهي أمركي أنا أقول روبك وان كل نستا أو كدقه ها أرقدي لكن أنا دحنتا كجيلة ووايم حد كنت لا توا بقى بوي هردو فايلكو هلا مرينا وقت قاسي وارنتاي دد باي هرددو wanaagsantahay xilliga dhaxanta wataa khudaartii balka naqayso khudaartii in damboyto in ku waran gabartaan kiishaani gabadhii waan iga si fiican ugu adeegay waana iga soo doonataa maalin walba kaalay arag sida uga heshay khudaartii taas ogaayay waba weelasa dhaqaalay gabarta suuq faylalata waa gabadh wanaagsan oo aan macmiilkeeda ka helay maasha Allah barakadii suuqa helaasa marinay cidii waxaysatay ilaahay ha u barakeeye in kastoo saaka habsaantay maxaan ku siiyaa hiraabtu waliba islahaay walyarka sug intii gabriyo royti dhibka badanaaytay adeegdaasa naama hodan baa taa yari haa yaa mucjisada waba isqabsadaasana hadda ka eeba waase walaa 10 bay ku dhigtay taa yari wal unu shago kalena ma ee dambile hanin jiidasa miyaan ku sheegay inay Fayse iyo Igraanba islaayeen oo ay halkan isku dili gaareen marina aad waliba fadaas inta dukaanka koo hirima إكراني أنا حفلة فريتان كمال كرهون بل واحد دوا وين مقع عليه أوف عليك هبلها يجي ما أنت إذا حدتك قروح ذي إنه يكون دوخي دونان ومين مالك ليك ويا سيدنا نقصوا لبستين هوي أنا بنقدر نقول أنا نكهي دي السنة أدنى واحد قصة بعد هوي أركي يذهبكي أيسوك هالدورتي كرا حفلة والبس إذا سيجود ده شاينا يسميسو لبستك أودا موقفة شعوب هوي صوّح ولو ما هبيسنا هذا واحد ولا بيويس حني هنا أديكوا يسكفريس أنا قاعدة ما يسترينا وحيد منه إذا كان ذكوا هلاينا ياي أنا شيكدو دي تشيدن السلادات كواهد الهيسان هاي هوي قد بدأ دواسو دو هاي أرض سيد يا جرو ولا يقرأني وحادي دي بيسان وروح ذا يا حفلة أنكو تشبنو إيه أنا بهني نرتشوفو نهارت من فرحة إذا كنتين محاد أبيني تبودان مال كستا إيه كمان نفسي كرم يا هذا هينتيسا يعني جماعة صافي هوية كتادبك ما هو قد أدو واحد كده وعيس قلبك هوية هذا أنا كل حاجة كده إيه أنا هين أبين فرحة إلى قاطع hablo waxaan idin sheegayaa aabihiin u taga ama gurigiin haydin ku yimaado waxyaabahayga gaarka ganacsigayga iyo xafladahayga midna kuma soo qaadi kartaan mana keeni kartaan hada waaba khayr hadda hooyay noo ogolaatay aabihiin guriga inoogu yimaado hooyoy raalli ahow shaydaankana iskana fariiso waay haya soo dhaweeya martida bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu waa isi aad baad u mahadsantihiin dhammaan martidayda farxad bay tahay inaad ka soo qayb gashaan xafladda furitaanka isrimo waa tallaabo aan ku muujinayo horumarkayga iyo kan dumarka guud ahaan ilaahay baa mahad igu guuleeyey inaan sameeyo suuq laga wada heli karo dhammaan wax kasta oo uu qof u baahan yahay dharkii oo rag iyo dumarba leh kabihii dahabkii dhammaan dumarku waxay isku qurxinayeen macmacaanadii yaryaraa dhammaan ganacsiyadii isu baahnaa oo dhan baan isu keenay waa muhiim dumarka ganacsiga ku jira inay hore qaadaan tallaabo ay ku horumarinayaan ganacsigooda mar kale waa mahadsantii ku soo dhawaada moolka quraacdii iyo diyaari ninkaaga nimika soo kaca quraac doonaya imika maxaa TV-gan aan ka seexan waayo ugu kala haday bal naga naaqus horta Faysalo waa 12 barkii waa maxay hurdada ku hadhay Allah waa runtaay aan meydhay haddaba quraacdii iyo qadadii aan isku daray iyo diyaari horta intaan gurigan soo degnay nasashaaban ka helay qalbigiiba ii degay maxaad nasasho heli soo degan TV-ga waqtiga iskaga dilay TV-gu soo nasashada kuma jiro filmadan la socon waayay soo firaaqo uma helin ciyaartii naga daayo waxaan cunaysay oo adna miyaan dukaanka tagin dukaankiina tagayna joogay iska daayo saaka waxaan ku sheegay inaanan waxba dabka saarin maxay taashaahna xitaa shaahna dabka ma saarin nasiir ramuudka filinka baa ka mashquuliyay inaad cunto noo samayso soo maaha waan ii sidii ramuudka mise waan kala jabiyaadan baa tooda soo iibin haddaba TV-ga adigu cunto ka dhigaanu meelahaas cunto ka raadsanay oo waabad cadhootay kaale horta aniga ka baqtiyay TV-gii maxaad igu ciyaaraysaa haddaad cunto haysaa isii haddii kalena idda aan doontay oo xageedu doonaysa cuntada gurigii hooyaday baan ka doontay adiga maxaa kaa galay isteeji xabiibi ma gurigii hooyadaa baad cunto u doonan soo oramayso doqonkii baahi buu la soo laabtay
hodanay weli ciyaar baad wadaa anna waan gaajoonaya xabiibi raalliya hoo waan kaa cadhaysiiyey caawan casho macaan kuu samaynayaaye orado makhaadi ka soo qadee anigana iga soo qaad oo hadda makaa dhabbaa miyaanad xitaa adeegba doonaan sooniga ka raystay dhuxushii laxooxdii aan dubayey ee kale hadda igu dilay nafiskaan u dhacay oo hadda caqligaagu ma wuxuu ku siiyey inaynu maqaaxi cunto ka soo iibsanno yaasmiinay hooyo waa maxay bacahan tirada badani maxaa ku jira hooyo waa adeegii aan u baahnayn toddobaadkan oo dhan oo ma qudradda intan tira leeg baad soo iibisay hooyo maalin walba miyaan suuqa ku kallihi karaa mar qura soo wada adeega baan is idhi anigu maxaan qabanayaa hooyo sawniga suuqa ka soo adeegi kara maxaaba hooyo qorraxda iyo waddada gawaadhida badan ku geynaya socodkaaba caafimaadku iigu jiraaye intaasi markay naga idlaato anaa aroorta hore inoo soo adeegi doona maya hooyo waniin qaboojiyaha inoo keenay halkaa baynu ku ridanaynaa khudradda iyo hilibka toddobaadka oo dhan way noo oli karaan oo marka anigu gurigunbaa fadhiyayaa sow maaha horta waxaad ka nasanaysaa faysal iyo hodan rabashkoodii iyo qayladoodii yaasmiinay haba iska hawl badnaadeene haddana aniga weheluunba ii ahaaye hooyo imikaba cidladaada ay dhibaysay oo anigaa shaqadii ka soo tegey iyadoon duhurba la tukan hooyo waa adigan ganacsiga samaynaya maalin walbana kama iman kartid shaqadee waxaan u yeedhan doonaa tii yarayd ee habaryartaa dhashay waa tuma hooyo ma habaryartaydii miyiga ku noolay haa habaryartaadii faadume miyiga joogtay ee ii odhan jirtay inanta yar wixii bar oo ma wehelbaad ka dhiganaysaa haa wehello hooyo hay noqoto dherigana ha isugu keen shubto iyana waxa barato hooyo ma ina yaro miyi ka timi ayaa cuntadaada karin garanaysa anigaa baraya maalmaha hore unbay u baahantahay in la tustuso waa inan yare maadaa rabashkeeda qaadi karaya kuwii waaweynaaye faysal iyo hodan baad xejin kari weyde carruurtii ma cashaysiisay maryanay oo maxaa dhigay mar horaan cashaysiiyey dhowr maalmood dugsigii ayay ka habsaameen bismillaah haa duhurkii bay seexanayaanoo habeenkii bay soo jeedayaan ka waran haddii aynu duhurkii mashquulino o aynu madrasad soo qorro waa farsamo fiican caddiyow waan ka fakeraya aniga laftarkayda berri ayaan soo qoraya haddii alla idmee haye bal horta cashee cashadu macaana maryanay caawa haddaad horay u timaaddo ayay ka sii macaanaan lahay wallahubaa caawa yaa kuu duceeyey waad qirtayba inay cuntadeedu macaan tahay cuntadaadu inay macaan tahay ma shaki baa ku jira maya weligay kaama maqlin dumarkana ilowshahaas ayaan ku nacay sownigii weligayba ku odhan jiray sidaad anigu maanta ka hor kaama maqlin malaha adigaa ogaa inaanay macaanayn aniga cuntadeeda waxba iskama beddelaane horta khudaartii aanu ka ganacsanaynay dherigeenna way ka muuqataa maryanay bisinka sawtaa ilaa carruurteenna ka muuqata haa waan arkay inaan kuu sheego ayaan rabayba cabdiyo waan ilaabi gaadhaye gabadhii igraan baa ii timid oo iiga warrantay arrintii daynta haye oo maxay ku tidhi waxay ii faahfaahisay sida loo qaato daynta haye waxay igu tidhi anigaa ku raacayee horta adigu miyaanad arrinkaa daynta wax xogaba ka helin aad ayaynu ugu daalna xafladdii saaka ee hooyo bunkii ma kuu shubaa igraan adigana diraasokor baan kaaga ka dhigay ii dhiibbaayey waabaan u baahnaaye waxay indhuhu igu daaleen sidaan warka kan u akhriyaayey hooyo aroorta hawl baan ku kalahayaaye shaaha ii dhiib intaad moobalidiinna ku foorartaan baan anigu tiifiigan daawanayaaye degallada oo dhan hooyo waxaa haysta waa horumar aad u qurux badan kolkaad daawanayso hooyadaayo meel sare gaarta saafiyey kaale telefoonkayga eeg hooyo khudbadana haysa ayay soo dhigeen bogga facebooka kaamirada xoog bay ugu soo baxeen dharkii eeg waa xilligay la dhici jidhay waxay tasho naa hooyadan baa quruxda wadata iyo dahabka ay xidhan tahay naabalaayo hadalka kula boobtaye waxaan ku tusahayey quruxdeeda eeg dadkani waxay qorahayaan haweenayda ganacsatada ugu weyn deegaanka toosan oo moolkii ugu weynaa furtay fani waan ka helay walaalaynta dhaabal hoos u wad muxuu leeyahay kaasi ma soo geliyeen warbaahintaanu u yeedhnay oo dhammi naw aniga weli baarahaya intaan arkayo way soo geliyeen kan eeg sawir aad u qurux badan buu soo geliyey boggiisa de malaha qaar baaba ku moodahaya hablii dharka xayeysiinahayey bela dhar xayeysiisa nahadhayga daayilaaqda maya labadii injineer saaka aad ba u shidnaayeen nahadha soo kuwan boggani wuxuu soo qaatay labadooda markuu sheegayay dadka xafladda ka soo qayb galay wuxuu qoray injineeradii dhisay moolka oo xafladda ka soo qayb galay maanad u jeedin walaale naa maxaad sheegaysaan ilaa saaka indhihii baa idinku go'aysa aad u eegayseeni nuxunuxdana waad haysaane walaale fiirisay u shidan yihiin haddii waabaynala joogi lahaa gebigoodaba ka qorxsanaan lahaa
na aamus hooyoyay ku maqline hooyo wax badan baa laga qoray furitaanka moolka welibana sawiro aad u qurux badan bay soo geliyeen meel kasta naa horta miyaanan ku odhan aabbaha farxadahaygii howlahayga soo dhex gelin naa macaradaydaa laguu abuuray adiga hooyoy ma wax dhib ahaan sameeyey anigu haddaan aabbahay soo hadal qaaday maxaad uga gubanaysaa saafi waa khalad sad hooyadaa ula hadlaysaa hedha imise jeer baan kaala hadlay arrimaha hooyo iyo aabbo hooyo sawtay inoo ogolaato inuu aabbo guriga inoogu iman karo waa maxay hadalka badan aad waddaa inanta yar kibirkaan ka badiyay ekraana iska daa mar labaad baan idinku celinayaay aabbihiin wuu idiin iman karaa balse ma soo dhex gelin kartaan amuurahayga qaaska warku ma idiin dhacay waayahay hooyo anigoo xumays ma lahayne raalli ahow hooyo macaan iga daa hadalka badanoo miyaad diyaarsatay safarkaaga waxaad uga baahnay